بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان warbaahinta halkan ku sugan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa idin salaameynaa waa idin ka mahad celinaynaa shaqada dalka iyo dadka u haysiin waxaan idin sheegaynaa in ay ku kooban tahay kali hata war saxaafadeed aanu xisbi ahaan soo saarnay intaas aad sida ku qaadan doontiin hadii ilaahay ilaado wax su'aali ma jiri doonaan bismillaahir rahmaanir rahiim xisbiga ucid xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucid waa xisbi qaran oo ku shaqeeya mabaadi'da dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka khuseeya axsaabta qaranka mar walbana heegan ugu jira ilaalinta qarannimada iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiga ucid kama mid aha xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi balse sida caadada u ah xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid waxa uu mar walba xukuumadda hadda joogta iyo kuwii ka horeeyayba uu kala shaqeeyaa wixii uu u arko inay danta qaranku ku jirto xisbi ahaan anagu ma garab istaagno qof balse waxaanu garab istaagnaa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe iyo Dr. Cali Khaliif Galeyd oo kamid ahaa ay safar dhawaan ay ku tageen dalka Belgium caasimadiisa Brussels shir uga socday deeq bixiyayaasha dalka Soomaaliya balse waxay ahaayeen gudoomiyaha xisbiga ucid iyo Professor Cali Khaliif Galeyd ay halkaas u tageen inay ka dhaadhiciyaan isla mar ahaantaasina ay garab istaagaan dawladaha Soomaaliland raba in ay gaar wuxooga loo siiyo inay iyaguna pressure group u noqdaan oo ay halkaasi dibadda iyagoo shirka ka ahaa ay taageeraan xisbiga ucid ma aha xisbi mar walba ku foogan kala qaybinta bulshada reer Soomaaliland sida xisbiyada qaarkood ay mar walba mashquul ugu yihiin kala qaybinta bulshada reer Soomaaliland umana yaqaanaan taageerayaasheeda xisbiga ucid dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sheegaan iyo garaan xisbiga ucid ma aha xisbi bixiyay kelmadaha foosha xun leh ee maanta cadawga Jamhuuriyadda Soomaaliland dibadda kaga hadaaqtamo oo noqotay kelmado nabur Soomaaliland ku noqda oo ay isticmaalaan cadawga Soomaaliland balse waxa bixiyay qaar kamid ah walaalahayaga xisbiyada mucaaradka ah gudoomiyaha xisbiga ucid ma aha shakhsi looga boqo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waana mas'uul ku caan baxay oo adeegida shacbiga iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigiisa oo dhan u hibeeyay ilaalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kale gudoomiyaha xisbiga ucid waxa uu u mahad celinayaa dhammaan shacbi weynaha reer Soomaaliland ee taageerada buuxda la garab istaagay gudoomiyahooga una muujiyay kalsoonida buuxda ay ku qabaan gudoomiyaha xisbiga ucid waxa xusid mudan intii uu dalkan Soomaaliland ku sugnaa ee uu talada xisbiyada qaranka oo xisbiga ucid oday ka ahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ahaa haliyeyga markastoo dalkan dhibaato ay la soo daristo qofka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka saara sida doorashooyinkii dalkan iskaga kala dambeeyay oo ay kamid ahaayeen markii 85 cod lagu kala bixi waayay inuu ahaa gudoomiyihii aqbalay in madaxweyne Daahir Rayaale Kaahinu madaxweyne noqdo gudoomiyaha xisbiga ucid maaha nin tala xumo ka soo baxday iyo cabasho isaga ka timiday darteed iyo kursi doon uu dalkan 3 jeer buu madaxweyne u tartamay tala xumo ka soo baxday darteed dalkan dhiiguguma daadanin Faysal Cali Waraabe balse waxa xusid mudan in saaxiibadayada qaarkood doorashadii ugu horeeyay ay galaan ay dhiig ay ku daadiyeen marka qof maaha Faysal Cali Xuseen looga boqo maanta tala xumo isaga ka timiday iyo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland wax lid ku ah qof looga baqayo ma aha waxaanu u sheegaynaa saaxiibadayada xisbiyada mucaaradka ah talaabadu Faysal Cali Waraabe qaaday ee ah inuu madaxweyne Farmaajo la kulmo waxa ay ahayd mar walbana xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan lagu celcelin jiray annagu arinta tukaraq iyo dalka Soomaaliland wax kasto uga yimaado dalka Soomaaliya cid aan Farmaajo ahayn kalama hadlayno tii ayaanu ka dhabaynay malaha saaxiibadeed waxay ku farxi lahaayeen ama amaanta raali gelin lahayd inaanu xaaf iyo la kulana Cabdiwali Cali Gaas balse waxaanu anagu la kulmaynaa madaxweyne Muuse Biixi dhigiisa Soomaaliya waxaanu kala hadlaynaa qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland wixii inta ka faahfaahsan
iyo waxa weeye shirkaasi wuxuu ku saabsanaana guddoomiyaha xisbiga wicid isaga ayaa inoo faahfaahin doona marka insha allahu tacaala uu yimaado waxaanu xusuusinaynaa saaxiibadeeda xisbiyada mucaaradka ah tallaabada uu guddoomiyaha xisbiga wicid qaaday dawaqaadda ay ka qaadeen waxa ay la mid tahay mid ay waxa weeyaan heerka ay gaadhsiisan yihiin iyo mustawaha ay gaadhsiisan yihiin una weli gaadhin arrinta Faysal Cali Waraabe oo ku tallaabsaday saasi daraaddeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin saxaafadeedkaygu intaas ku kooban yahay intaas aad baad u mahadsantihiin kulanka uu madaxweyne farmaajo la kulmay ma ahayn kulan isaga iyo professor Cali Khaliif ay dalbadeen balse madaxweynaha ayaa dalbaday iyaga taa lafteeda waxaan u aragnaa inay sharaf weyn tahay inuu maanta Soomaaliland raadiyo farmaajo waxayna ku timid qarannimadeena halka aynu istaagnay iyo halka ay waxa weeyaan mabaadi'da aynu istaagnay xisbi ahaan iyo xukuumad ahaanba inagoo mida marka kulankaasi wuxuu ahaa kulan farmaajo dhinaciisa ka yimid wuxuu isagu rabay inuu noo sheegay inaguna waxaan kala hadalnay sidoo gudoomiyuhu noo sheegay arrimihii aynu horeyba ugu tuhmaynay sidoo gudoomiyuhu sheegayna uu ka dhaartay arrimaha qaarkood wad maasantii gudoomiyaha xisbiga wicid iyo professor Cali Khaliif Galeeda yeesheen waxa ka soo baxay xogo badan iyo siro badan oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland khuseeya waxana laga sheegi doonaa hadii la hadaada markay yimaadaan ayay sheegi doonaan xogaha rasmiga ee ku saabsan bishaarooyin waaweyn bayna Soomaaliland u tahay waana la kala baxay ku bishaaraysta inta